dufcaddii saddexaad ee shaqo qaran hay'adda shaqaaluhu ay ku meelaysay dhammaan wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda. Runtii aad baan ugu hambaliyeynayaa 117 dumar ah iyo 311 rag ah oo isku noqonaya 482 shaqaale. gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland mudane Khalid Jaamac Qodax oo maanta warfidiyeenada kula hadlay xafiiskiisa isagoo ay weheliyaan mas'uuliyiinta sare ee hay'addaasi ayaa waxa uu shaaca ka qaaday go'aan ku saabsan dufcaddii ugu dambeysay ee dhalinyarada dhamaystay barnaamijka shaqo qaran ee xukuumadda Soomaaliland ee ay hal abuurtay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo tafaasiil ka bixinaya go'aanka ay qaadatay hay'adda shaqaalaha dawladdu ayaa u sheegay saxaafadda. bismillaahi raxmaani raxiim. maanta ay tahay bishu 29 bishii 9aad 2022 waxa aynu u fadhinaa inaynu shaacino dufcaddii saddexaad ee shaqo qaran. waxaana ila fadhiya agaasimiye guud hay'adda shaqaalaha, commissionerskii hay'adda shaqaalaha iyo agaasimo waaxeedyadii hay'adda shaqaalaha oo dhammaantood maanta halkan ka shaacinaya dufcaddii saddexaad ee ka qalin jabisa shaqo qaran. shaqo qaran runtii waa barnaamij muddo soo socday, runtiina ah himilooyinka iyo hadaafta ugu waaweyn ee xukuumadda iyo madaxweyne Muuse Biixiba ay runtii ku faanaan. waana barnaamij runtii shaqo carbin iyo shaqo abuur u sameeyay dhalinyaro fara badan oo runtii ku kala nool gobolada waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. shaqo qaran runtii waxyaabaha guulaha laga gaadhay ay ka mid tahay in runtii goboladu lagu daadejiyay in si siman ay u helaan shaqo abuur, sanad kastana ay runtii helaan shaqaale loo qoondeeyo gobol kasta. shaqo qaran runtii hay'adda shaqaaluhu waxay ku leedahay door weyn, hadday tahay hubintooda, hadday tahay diiwaangelintooda iyo hadday tahay qaybintoodaba. maanta markaa waxaynu u fadhinaa inay dufcaddii saddexaad ee shaqo qaran hay'adda shaqaaluhu ay ku meelaysay dhammaan wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda oo insha Allah sanadka 2023 bisha 1 January miisaaniyadda qarankana ay la jaan qaadi doonaan oo ay noqon doonaan shaqaale weynaha qaranka xubno ka mid ah. runtii aad baan ugu hambaliyeynayaa 117 dumar ah iyo 311 rag ah oo isku noqonaya 482 shaqaale oo ku soo biiray shaqaale weynaha qaranka oo iskugu jira shaqaalaha ka kala imanaya gobolada waddanka oo dhan. runtii sharaf bay noo tahay hay'ad shaqaale ahaan, maamul ahaan in shaqaalahaasi aanu ku meelaynay wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda oo muddo bil gudaheeda aanu runtii kusoo diiwaangelinay kuna soo hubinay inay soo dhammaysteen barnaamijkii shaqo qaran iyada oo wafdi ballaaran oo hay'ad shaqaalaha ah ay u kala baxeen dhammaan gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland, taasi oo runtii lagu xaqiijinayay shaqo qaran dufcaddii saddexaad lagu soo diiwaangelinayay sidoo kalena lagu hubinayay. waxaa runtii sharaf iyo farxad noo ah in shaqaalahaasi kusoo biiray shaqaale weynaha qaranku ay yihiin dad karti iyo aqoon iyo waayo-aragnimada u leh. aanu filaynana goobaha shaqada inay wax badan ka bedeli doonaan sanadkan 23 ee runtii bilan doona. waan u hambaliyeynayaa dhammaantood, waan soo dhaweynayaa, waxaan kusoo dhaweynayaa hay'adda shaqaalaha. waxaana runtii lagu dhaqi doonaa xeerka shaqaalaha dawladda xeer number 97/2022 oo ay noqon doonaan shaqaalahaasi shaqaale weyne runtii mabaadi'da iyo ujeedooyinka xukuumaddu ay gudbinayso qayb ka mid ah runtii noqon doona. sanadkan waxaa sharaf noo ah inaan muddo kooban kusoo dhammaystirnay howlahaasi oo dhan ay kana mid noqon doonaan shaqaalahaasi shaqaalaha wax ka bedeli doono goobaha shaqada sanadkan. shaqo qaran waa barnaamij runtii midho dhalay, waxna ka bedelay goobihii shaqada qaranka, wasaarado fara badan kusoo kordhiyey hal abuur iyo ilbaxnimo runtii aad u sarreysa. barnaamij runtii guulaystay oo la mahadiyey oo runtii cid kasta oo Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku mahadinayso madaxweynaha oo fikirka lahaa iyo runtii agaasinkii shaqo qaran oo iyaguna ka midho dhaliyay ahdaaftii madaxweynaha. hay'adda shaqaaluhuna runtii ay u hoggaansan tahay oo ay fulinayso mabaadi'daasi madaxweynuhu nagu hogaaminayo inaan runtii ka midho dhalino oo ay noqoto shaqo qaran barnaamij lagu faano. shaqo qaran waa meesha iyo isha iyo meesha keliya ee laga shaqaaleysiiyay shaqaale weynaha qaranka maanta. meel kale oo miisaaniyad iyo shaqaale laga sameeyaa ma jirto. taasina runtii waxay sharaf u tahay in si cadaalad iyo karti iyo hufnaan iyo daacadnimo ku jirto loogu tartamo sidii looga mid noqon lahaa shaqo qaran
anaguna runtii aanu si cadaalad iyo hufnaan ku jirto markaanu qaybinaynana u qaybino anagoo u eegayna aqoontooda iyo waayaragnimadooda iyo waxay barteen su'aal ahaan dadka caafimaadka bartay waxaan geynaa goobaha caafimaadka sida wasaaradda caafimaadka oo kale iyo midnahadlayaasha caafimaadka dadka takhasuska gaarka leh ee munaasibka ah markaa goobaha kalena runtii waxaan geynaa wasaaradaha iyo hay-adaha kale aad iyo aad baan runtii idinku hambalyeynayaa dufcadda 482 ee kusoo biiray shaqaalaweynaha qaranka waxaanan u rajaynayaa inay ahdaafta iyo himilooyinka qaranku uu xambaaraya ee higsiga la higsanaya ay ka midho dhalin doonaan waxaa kaloo aan halkan ugu bushaareynayaa inay heli doonaan fariimo qof kastaaba goobtii lagu qoray wasaaraddii lagu qoray iyo waqtiga uu shaqada si rasmi ah u bilaami doono insha Allah dhawaan aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa bahda saxaafadda oo runtii warbixintana u gaarsiin doonta qof kasta oo shaqo qarana waxaa kaloo mahadnaqayaa xubnaha commissioneriska fadhiya agaasimaha guud iyo shaqaalaweynaha hay'ad shaqaalaha oo runtii dadaal badan geliyay sidii ay u hubin lahaayeen u diiwaan gelin lahaayeen una meeleyn lahaayeen shaqo qaran madaxweynaha waanu mahadnaqaynaa iyo agaasimaha barnaamijka shaqo qaran oo isaguna door weyn ku lahaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdishakuur dayib maxamed MMTV hargeysa سلام عليكم السلام عليكم waxaanu jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican idinkaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan isku halayn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato